guddida komishinka doorashooyinka ee Somaliland ayaa maanta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxa ay dib uga fureen diiwaangelinta codbixiyaha gobolka Togdheer iyo sidoo kale qaar ka mid ah degmooyinka Gar-adag, Ceel Afweyn iyo sidoo kale Caynaba. munaasabad kooban oo ka qabsantay hoteelka Kaafi ee magaalada Burco isla markaasina dib loogu furayay diiwaangelinta codbixiyaha ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta sarsare ee guddida komishinka doorashooyinka Somaliland, mas'uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco iyo sidoo kale marti sharaf iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Burco. ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay isla markaasina habka ay u bilaamayso diiwaangelintu faahfaahin ka bixiyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta guddida doorashooyinka Somaliland. diiwaangelintu waxay insha Allah inoo bilaabmi doontaa 27 bisha waxayna socon doontaa 4 casho oo qof kasta oo muwaadin ah insha Allah goobtii loogu talagalay loo geyn doono shaqaalihii iyo cidii u shaqayn lahayd iyo cidii nabadgelyada sugi lahayd iyo cidii hawshaas agab tiri lahayd iyo qalabkii lagu qaban lahaaba dhammaan komishinku way diyaariyeen. insha Allah waxaan ku rajaynahay 4 casho qof kasta oo muwaadini inuu ka faa'iideysto. muhiimadda waxaynu siinaynaa ama ujeedada dhan ee waxa soo hawlo loo galay lacagta inta loo bixinayo ee shaqaalaha inta lagu hawlgeliyaan waa in la siiyo muwaadiniinta intii aan isdiiwaan gelin inay iyaguna chance helaan. dadkaas oo ah dadkaan hore isu diiwaan gelin markii hore iyo dadkii daahaan ka yaraa ee aan qaan gaarin ayaa muhiim ah. waxa kale oo iyadana muhiim ah dadkii hore intii markii hore ku noqdeen 2 jeer iyo 3 jeer ama ka badan kaarkooda ka guftay iyagana waxa loo siinayaa chance inay ka qayb qaataan. ka qof kasta oo kaarkiisii hore haysta oo aan ahayn dadkii kaarku ka gubtay ma gelayaan marka haddii ay galaan wuu ka gubanayaa wuxuu noqonayaa qof dablikeeda. dadkii kaarku ka lumay ama qofka doonaya inuu iska bedelo degmadii markii hore iska diiwaan geliyay degmooyinkaasi waxa weeyaan 23 degmo doorasho ee komishinka u diiwaan gashan ayuu qofku ka bedelan karaa. sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiin ka socotay xisbiyada Somaliland iyagoona bogaadiyay bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer iyo sidoo kale degmooyinka kale ee ka bilaamayso dhawaan diiwaangelintu. arrintii mahad ballaaran u jeedinaya komishinka doorashooyinka qaranka aanu la shaqaynay muddadii hadda ay socotay diiwaangelintu markhaatina aanu ka ahayn hawl aad u baaxad weyn aad u culus aad u dhib badan inay ku dhacaysay ayna u dhabar adeegeen. diiwaangelin helimayna haddii aan ammaan jirin inay ka qayb galaan madaxda gobolka, cuqaasha, haweenka dhammaantood siday nabadgelyada uga qayb noqon lahaayeen si ay diiwaangelintaasi inoogu dhacdo kana la ilaaliyo komishinkana lala shaqeeyo laysna abaabulo laysdiiwaangeliyo. fariinteennu waa intaasun. intaa kadib waxaan leeyahay on gobolka Togdheer u soo jeedinayaa tartan baa lagu jira isdiiwaangelinta ah. waxaan leeyahay toosa isdiiwaangeliya xaq baad u leedahay inaad isdiiwaangelisaan xaq baad u leedahay marka isdiiwaangelisaan hadhow toole inaad wakiilka iyo golaha deegaanka iyo madaxweynahaba doorataan fartiina ha eedinaya. waxaan leeyahay isdiiwaangeliya oo qof waliba ha qaata kaarka isdiiwaangelinta siduu doorashada uga qaato. wacyigelinta kale ee aanu xisbi ahaan u soo jeedinaa waxa weeye in la shaqeeyo komishinka weynaha iyo shacabka in gacantooda mas'uuliyaddii lagu soo celiyo. maanta inagaa go'aan kale haddaynu nahay bulshadii shacabkii reer Somaliland. wejigii labaad oo magaalada Hargeysa iyo gobolka Saaxil iminkana maanta waxaynu joognaa wejigii saddexaad oo gobolka Togdheer degmada 2 degmo oo Sanaaga iyo degmo Soola. runtii aad iyo aad baan ugu dhiirigelinaynaa komishinka shaqada fiican ay qabteen. ugu dambeyntii waxa munaasabadani soo gabagabeeyay gudoomiyaha guddida komishinka doorashooyinka Somaliland Cabdirashiid Riyaraac, barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd iyo sidoo kale maayir ku-xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xod. qarannimadana waynu wada leenahay guushana waynu wada leenahay laakiin waa la tartamaya. inteena soo hadhay waxa loo baahan yahay inaynu diyaar garowno oo kaarka qaadano. waxaan u diyaar garownay haddaan nahay cuqaashayadii haddaan nahay dhallinyaradayadii haddaan nahay haweenkayagii iyo haddaan nahay maamulkiiba si aanu si nabadgelyo ah si hufan si fiican aanu ula shaqayn lahayn komishinka una qaadan lahayn diiwaangelinta. waxaan leenahay dadka isdiiwaangelintu xaq
weeye dastuuriya oo qof walba laga rabo oo xaq loogu leeyahay reer togdheer iyo saddexda degmo ee la socda waa inoo 27ka iyo haddii ilaahay ka dhigo goobihii diiwaangelinta oo dhammaantood albaabadu u furan yihiin cabdiraxmaan cabdilaahi xasan telefishinka Som News magaalada Burco.